mudana madaxweyne waan kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga ee noo hurtay waxaad naga warantaa bal booqashadii aad ku timid dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan caasimadda deegaanka ee Jigjiga dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan booqasho ku nimiday maalintii labaadan joognaa runtii booqasho aad iyo aad u fiican oo taariikhi ahayd waa markii ugu horeysay oo madaxweyne Soomaaliyeed oo deegaanka soo booqda runtii deegaankan markaan nimidna dadka Soomaaliyeed deegaankan dowladdiisa mas'uulka ahaa ee shacabka ka ahaa runtii soo dhaweyn aad u fiican waa kala kulannay muhiimadda ugu weyn waxay ahayday hadee Soomaaliya iyo Itoobiya waayahan dambe oo dhan cilaaqaadkoodu soo hagaagayay kaabada Soomaaliya iyo Itoobiya isku xirtay bridge-ka ana waa dowladda deegaankan marka inaan duruufahooda aan aragno la wadaagno annagana kuweena aan uga warbixin ka siino uga warrano sida ay duruufaha dalka iyo howlaha ka socda iyo horumarka aan warbixin ka siino ayaguna way aragnimo iyo horumarkoodana aan aragno marka imaatankeena runtii wax badan oo horumar ayaan muxuu ahaay yaan kala kulan waxaad booqatay goobo kala duwan oo xarumaha adeeg bixinta maxaad ku soo aragtay qaar ka mid ah dadka Soomaaliya ku dhaqan ayaa fikrado kala duwan ka haystay hadda ka hor deegaanka marka adigu mudana madaxweyne seed u aragtaas horta de horumarka deegaanka ka jira intii suurtagal ah magaalada Jigjiga waliba deegaanka dhan ma ahanay magaalada Jigjiga ayaan soo daawanay waxbarashadan soo booqanay goobaha waxbarasho kala duwan xarumaha biyaha nadiifka deegaanka magaaladan laga bixiyaan soo daawanay farsamadeeda iyo sida ay u shaqeeyaan jaamacadii baan soo aragnay aan soo aragnay dugsiyada xirfadaha lagu barto dhaqan celinta sida loo daryeelay dadkii nabaddiidnimada ka soo noqday soo hagaagay iyo mustaqbalkooda sida loo hagaajiyay waxyaabahaas oo dhan runtii waxay ahaayeen waxyaabo ididiila badan la geliyay sida waxyaabaha lagu sameeyay iyo qaabkii loo isticmaalayna waa aragnimada aan ka kasbanay oo ay nala wadaageen mas'uuliyiinta ay ahayd sidoo kale warbixinada siyaasadka iyo barnaamijyada horumarineed iyo barnaamijyada adeeg bulsho ee deegaanka ka jirana aad baan looga warbixiyay marka nooc waxay ahayd runtii booqashadeena khibrad isweydaarsi ay ahayd runtii khibrad aad iyo aad u ballaaran waan kala kulan halkan qaar ka mid ah dadka Soomaaliya ku dhaqan ayaa fikrado kala duwan ka haystay hadda ka hor deegaanka marka adigu mudana madaxweyne seed u aragtaas dadka Soomaalida ee walaalahooda ee deegaankan Itoobiya degan nolosha adag iyo duruufaha adag oo ay ku jireen ayaa dadka Soomaalida ee Soomaaliya degan ayaa dhibi jiray marka ay maqlaan sheekooyinka qaarkood ama ay arkaan ama dadka halkan ka taga ama ka carara ee Soomaaliya tagay ay u waramaan dadku markaas yaa xumaan jireen waxay dhihi jireen war dadkan in loo gargaaro oo la xoreeyo oo maxaa ku xorriyad si ay u helaan ama habboonta caatifadaas yani walaaltinimada ah ayaa beri hore beri jirtay dowladihii beriga joogsaad u sheegtana way si siyaasadeeyeen oo siyaasad ahaan ayay u isticmaaleen haddii marka berigaasi dareenku ahaa war dadka Soomaaliyeed ee deegaankan ku nool nolosha ay ku nool yihiin nolol ka fiican ayay mudan yihiin de maanta nolosha fiicnad ay haystaan nidaam cusub ayaa hadda yimiday dadka Soomaalida ahay waxa dastuurka Itoobiya uu siiyay awood badan oo ay isku maamulaan hogaankooda ayaga ay doortaan cashuuraadkooda waxooda dhaqaalahooda ayagu ay aruursadaan wixii Itoobiya kala dhaxeeyna Itoobiya ay la wadaagaan wixii ayaga u gaarana ay qabsadaan marka maanta de qof kasto Soomaali ah wixii ula jeclaan lahaa dadka deegaankan degan way haystaan marka waxa ay haystaan hadda inaan la jeclaano oo ku hambalyeeyno oo ku bogaadino inay si horumarsadaan si quruxsanaadaan mooyaane wax kale oo hadda maanta de laga hadlaahay meesha ma yaalaan waxa meesha yaala waxay tahay warwaad wanaagsan tihiin horumar baad gaarteen tacliintii maanta jaamacadii Jigjiga University tagnay 22,000 oo arday ay dhiganayso oo maxay wax ku baranaysa ayadii laamaheeda kala duwan ay deegaanka jira xaruntii polytechnicada oo farsamo nooc walba la iyo dhaqan ciidti ka socotaan tagnay deegaankii baa meeshii aan gaari karin warbixinadeedii oo yani biyaha tuulooyinkii haatan biyo nadiif laga cabayo beerihii la tacbayo xanka xoolihii la daaweynayo dadkii caafimaadkii loogu geey marka de
wixii lala jeclaan lahaa ummad la jecel yahay oo dhan ayay ummaddana haysataa waanu ku hambalyaynana waanu ku faraxsannahay haddee ayagaan bana hata soo eegaynaaba xaggooda marka taariikhdaasi taariikh dhib badan ay ahayd maanta waa la soo gudbay annagu dadka soomaalida weligoodba dadkaanay un wanaag la jeclaayeen wanaaggiina maanta way haystaan inay sii wataan oo wanaaggooda sii kordhiyaan wixii Ethiopia kala dhaxeeyeen ay kala macaamilaan wixii u gaarana qabsadaan yaan annagu nala quman taasaanan spiritka iyo muxuu niyadda aan halkan ku nimidna sidaas ay ahayd marka dadka Soomaalida deegaanka waxa leenahay hambalyo shaqo fiican aad qabsateen oo idinku bogaadinaynaa intaad booqashada ku jirtay aad ku joogtay dowladdeegaanka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan caasimadda deegaanka ee Jigjiga maxaa ku soo jiitay mudana madaxweyne horta dee wax walboon arkay wax aad iyo aad u xiiso badan ay ahayd meel kastoo aan tagay hawsha ka socotay iyo dadka joogaba meel aad iyo aad wax loo u xiiso badan ay ka jiraan ay ahayd hase yeeshee anigu xaruntii aad ii soo jiitay arrinta ku saabsan maamulka dowladda ee deegaankan sida uu u qaabaysan yahay iyo sida uu habaysan yahay taladu sida ay u baahsan tahay ilaa meel hoose oo tuulo iyo maxaan ku raadayay dhowr qoys meesha ay degan tahay u gaarsiisan tahay haddana dadkaasi dowladda ay ugu xiran yihiin maamulku sidoo u baahsan yahay oo u samaysan yahay yaa runtii waxyaabaha oo ku daysiga mudan ee aan ku aragna halkan ay ka mid tahay waxa kaloo runtii aad iyo aad ayna dhiirigelin u lahayd doorka dhalinyarada ay talada ku leedahay dowladda deegaanka dowladdii deegaanka jirtay inta mas'uuliyadda hayso dad dhalinyaro ah gabdho iyo wiilalba dad dhalinyaro aqoon-yahan ah ayaa hayo marka iyadaana waa wax kale oo runtii aad iyo aad ididiilo weyn ula ayay ahayd waan la wadaagay dadka deegaanka barnaamijka adag ee horumarineed ee deegaanka jira ee adeega bulshada weliba caafimaadka tacliinta biyaha ee ka jira deegaanka iyo miisaaniyadda loo qoondeeyey iyo mashaariicda la xiriirta dhismooyinka ee ka socda yaa waxay runtii wax aad iyo aad marka runtii deegaanka booqashadii aan intaa labada beri aan joognay wax walboon aragnaa wax xiiso badan ay ahayd dadka Soomaaliyeed niyad samidooda Soomaalinimadooda dhammaan waxay ahayd wax runtii xiiso badan oo lagu farxay ahayd Jigjiga ayaa dhaxlogaysan adiga iyo madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar marka maxaa dareentay madaxweyne Xasan heerka amniga oo maraya ayaa ugu wacan in maxaan ku raadayay madaxdu iska lugeyn karto wadooyinka maqaayadaha iska fariisan karto shacbiga la kulmi karta hadii uu yahay mid maqaayad iska qaxweynaya mid wadada maraya amniga ugu wacan waana waxyaabaha wanaagsan oo maxaan ku raadayay dowladda deegaanka ay ku horumartay anigu runtii waa run ma badna inta aan magaalada aan maro laakiin dadkii aniga haddana xiriiraan leenahay meelaha dad bulshada iskugu tagto oo xeebaha oo kale iyo maalmaha jimcada meelaha publica ay dadku tagaan waa tagaa laakiin runtii dee sida oo levelka ama mustawaha amniga ee halkan ka jiraay aad buu u sareeyaa magaalada Jigjiga dhaxlogeynaysay ee wadooyinka socotay maxaad magaalada Jigjiga ku aragtay Jigjiga dabcan magaalo horumarka iyo dhaqdhaqaaqa yani horumarineed ee ka muuqda ayaa aad iyo aad u xoog badan marka waxa aad ii soo jiitay ganacsiga dhismaha magaalada ka socda ee maxaan ku raadayay maalgelinta ka muuqato hadii ay tahay hoteelo hadii ay tahay warshado hadii ay tahay maxaan ku raadayay wax soo saar kale iyo dhismaha magaalada ee daaraha dhaadheer wada dhismaya ee taagan yani magaaladu xaddiga horumarineed ay ku socoto aad iyo aad ay u weyn yihiin xaddigeeda horumarineed ayaa aad iyo aad u weyn marka runtii mandar ama muuqaal la jeclaysta ayay ahayday intii aan magaalada dhex maraynay wixii aan ku soo aragnay mudana madaxweyne khudbadaadii waxaad ku celcelisay in horumarka ay saldhig u tahay nabadgelyadu isla markaana ay tahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada laakiin xubnihii ugu dambeeyay ee lagu qabtay xadka ee ka tirsanaa ururka nabadiidka Obbo oo Eritrea ka yimid waxay sheegeen inay Muqdisho isku soo abaabuleen marka arinta maxaad ka oran lahayd nabadgelyadu waa waxyaabaha laga wada shaqeynayo oo runtii horeyna aad looga balamo dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya ay ka balameen in laga wada shaqeeyo kamid tahay hadda kooxahaasi waa kooxa maxaan ku iraahdaa tuuga ah oo dhuumaalaysanaya oo ilma eegtaa la yiri meelaha ka dusayo oo meelaha muxuu ahay hay'adaha amnigu ay
anay joogin ama meelaha qolada kale saaxiibadooda ee nabadiidka ah meelaha ay joogaan ama shabaabka ku soo dhex dhuumanayo oo soo marayo ubadhe shabaabde ugusdhe alqaacidadhe waxaana cid kasta oo dadka iyo deegaanka deganaanshiyo u diidan wax macna midkaanu ka sii naxariis daran yahay iyo in la yiraa waa macquul laakiin waa isku kategori waxba ma dhaamaan ubbo iyo shabaab iyo ugus iyo waxba isma dhaamaan dhammaantood waa dad nolosha bini aadamka ay dhibaysa weeye marka annagu waxaa ku mashquulsan oo dhan kuwan hadda waaba Soomaali walaalaheena ay dhibayaan xataa kuwa caalamka kale dadka naga fog dhibaya xataa annagu col baan nalnahay marna heshiis lama ay wixii tuuganimo oo soo baxsado meel ka soo duso waa gooni laakiin annagu dalka Ethiopia waa kala shaqeynayna wax kasto Ethiopia carqalad ku keenayana waa wax Soomaali carqalad ku hayo way jirtaa in dhinaceena ay kooxo badan oo maxaan ku raad tuuga ah oo meelaha dhuumaaleystay ay joogaan laakiin haddii ay tahay dawladda Ethiopia guud ahaan iyo dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia intaba amniga marna annagu ma tanazul kama sameynayno si buuxdan uga shaqeynayna hadba intii awoodeenu ay la egtahay booqashadaadu maxay ku soo kordhin kartaa dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia deegaanka Soomaalida wuxuu ku soo kordhinayaa dabcan dadkan dad wada ahlo qaraaba oo si uu isugu wada xiran waay wuxuu ku soo kordhinaysaa inaan u sheegno horta haddii shalay loo sheegi jiray Soomaalidu idama rabto oo dawladnimadiina ma ogola oo way idin dafirsan tahay oo waa kan iyo waxa haddii loo sheegi jiray waxaan inaan u sheegno dawladnimadoodan ogolnahay nabadoodan ogolnahay deganaanshaha iyo horumarka ay ku talaabsanayaan ogolnahay kaasa ayagana wax u anfacay annagana waxna anfacayo haddii aanay amni haysanin oo horumar aanay haysanin annagana waxba nooma tari karaan ayagana waxba isma tari karaan laakiin meesha hadda ay marayaan waa meel aad iyo aad u sareyso waana iskaashanayna booqashadeedu waxay ku soo kordhinay inaan u cadeyno waxa iyo nolosha iyo horumarka iyo wanaaga halkan ka jiraahay inaan raalli ka nahay ku faraxsannahay annaan ku faanayno weliba marka halkaa inay ka sii wadaan annaguna aan muxuu ahay wixii waaye aragnimo ah ay nala wadaagi karaan ay nala wadaagaan annaguna wixii aan la wadaagi karaan aan la wadaagno iskaashiga uun xagga laga sii xoojiyo weeyaan ugu dambeyn mudana madaxweyne maxaa fariin oo u diri lahayd shacabka deegaanka Soomaalida Ethiopia bulshada deegaanka Soomaalida waxaan kula dardaarmayaa mar walba in ay dawladnimada ilaaliyaan oo qabyaaladda siyaasadaysan iska dhaafaan iska dhowraan qabiilku waa meel loogu soo gabado dadka kii diin wata qabiil kugu soo gabanaya inuu wax ku dheel rabay kii siyaasad guracan watay qabiil kugu soo gabanaya kii diinta khaldaya qabiil kugu soo gabanaya qabyaaladda siyaasadaysan qabyaaladda qabaa'ilana mana inkirayna inaan qabaa'il nahay oo Soomaalidu hab nololeedkeedu ka mid yahay qabiilku laakiin waxaan rabnaa qabiilku meeshii uu lahaa iyo wixii wanaag uu lahaa inaan ku hayno laakiin waxa aanu lahayn aan ka ilaalino annaanu noqonin qabiilku aaliyad loo isticmaalo in carqalad lagu abuuro nolosha dadka marka waxaan leeyahay kula dardaarmayaa qabiilka siyaasadaysan iska ilaaliya qolyaha dawladda banaankeeda nidaamka dawladda xayndaabka dawladnimada banaankiisa qoryaha sidato oo waxbaan xoreynayna iyo waxbaan saxayna iyo waxbaan diin baan toosinayna waxa waa beentood ayaguna iska ilaaliya maxaan ku iraahdaa horumarka aad wadaan si toban jibaar oo hore u sii dhaqaaqan leeyahay inta aad gaartayna bogaadin iyo hambalyo ayaan ugu diraynaa waad fiicantiin wada fiican aad haydaan oo horumar iyo amni iyo deganaanshiyo leh halka ku sii talaabsadaan leena aad baad u mahadsantahay mudane madaxweyne